السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيقو معلم محمد إبراهيم waxaan rabaa inaan bilaabo koorso cusub oo la magac baxday accounting xisaabaadka waayo accounting waxaan u bilaabayaa maadaama YouTube channel-ka aan ku soo gudbiyo koorso la dhaho Tally ERP9 software. Tally ERP9 waa software computerizing accounting oo computerizing accounting waa software mataqaana ay isticmaalaan kambaniyada iyo ganacsatada yarka ay isticmaali karaan. marka software kaas iyo waxa jira software badan ayaa jira sida QuickBook oo kale Dag Easy-ga, Beachtree-ga iyo Tally ERP9-ka oo anigu aan soo gudbiyo. marka software-daas qofka haduuna basic accounting-ga aqoon way adkaanaysaa inuu mataqaana software-da ku shaqeeyo ama uu fahmo. xataa ownerka ganacsiga qofka ownerka company-ga iska leh haduuna mataqaana basic mataqaana accounting haduuna aqoon oo ku adkaanaysa inuu ganacsiyadiisa mataqaana inuu ganacsigiisa ogaado xaaladda ku sugan yahay profit and loss accounting. laakiin qofku haduu mataqaana basic accounting yaqaano waxa uu fududaanaysa inuu software-ka isticmaalo oo aan software isticmaalo. marka saas ayaa waxaan jeclaystay maadaama aan bixiyo Tally ERP9 oo ah computerizing accounting in aan soo gudbiyo basic accounting-ga. basic accounting-ga waxaan soo khulaaseeyay in mataqaana very important oo muhiim ah ayaan ka soo qaatay. intan hadda isla fahno waxaad fahmi kartaa ama mataqaana ku shaqeyn kartaa any software QuickBook, Dag Easy, Beachtree, any software waad mataqaana isticmaali kartaa waana fahmi kartaa haddii aad mataqaana accounting-kana fahanto basic-ga. marka accounting-ga laba ayaa loo kala qaadaa waxaa jira traditional approach mid la dhaho iyo modern approach. marka waxaan soo horeysiiyay kan oo ah traditional approach. traditional approach marka isla fahano aan qadameeyo ayaa waxa bilaabaya labaad oo ah modern approach. marka traditional approach waxa laga isticmaalaa all Asia oo dhan ayaa laga isticmaalaa iyo wadamo kamid yihiin Gulf country Carabta kamid yihiin. marka traditional approach haddii isla fahano dan wasla fahmi karnaa kan kale oo ah modern approach. marka haddii isla qaadano topic-een wax ku saabsanaya basic accounting-ga iyo journal entry-ga. marka waxaan isla ogaanaynaa types of accounting inta loo qaybiyo iyo rules for debit and credit iyo sharciyada debit and credit iyo journal entry ayaa isla ogaanaynaa. marka haddaan isla qeexno types of accounting waxa loo kala qaybiyaa marka la joogo traditional approach saddex ayaa loo kala qaybiyaa. tan koowaad oo ah personal accounting iyo tan labaad oo ah real accounting iyo tan saddexaad oo ah nominal accounting. marka saddex ayaa loo qaybiyaa marka la joogo traditional approach accounting-ga. marka haddaan isla eegno waa maxay personal accounting. personal accounting qeexidiisu waa maxay it is related to person waxa uu la xiriiraa dadka ayuu la xiriiraa person shakhsiyaadka ayuu la xiriiraa. marka traditional approach waxa loo kala qaybiyo waxa loo soo qaybiyaa laba ayaa loo soo qaybiyaa oo ah A oo ah natural person iyo B oo ah artificial person. natural person waxay noqonaysaa waa waxyaabaha dabiiciga waaye natural person-ka waxa kamid ah human being bin aadamka oo kale kamid ah. marka natural person waxa waaye ilaahay waxa uu abuuray waaye waxaana kamid ah bin aadamka oo dhan ayaa kamid ah oo waxa kamid ah Ali accounti, Ahmed accounti, Asia accounti ayaa kamid ah. kuwaas accounti ayaa la hayaa marka la joogo xagga accounting-ga. waxaa jira oo kale B oo ah artificial person waxyaabo mataqaana dabiiciga ahayn oo ah artificial person oo bin aadamka abuuray. kan waa maxay ilaahay ayaa abuuray oo wax ka waaye bin aadamka waaye. kan waa maxay waa artificial person waxyaabaha dabiiciga ahayn waaye. waxaa kamid ah banks xawaaladaha ayaa kamid ah sida tusaale ahaan Amal, Dahabshiil iyo kambaniyada oo dhan baa kamid ah. kuwan ayaa abuuray kuwan waxa sameeyay bin aadamka ayaa sameeyay kuwan waxa abuuray ilaahay ayaa abuuray kuwan ayaa sameeyay bin aadamka ayaa sameeyay. dan markuu ilaahay kuma taqaana abuuray mataqaana bin aadamka human being ayaa kuwa loo isticmaala ayaa halkan mataqaana kuwan waxa artificial person waxa waaye kambaniyada iyo mataqaana kambaniyada iyo xawaaladaha oo dhan ayaa kamid ah. waxa kamid ah bankiska ayaa kamid ah Dahabshiil ayaa ani bank way dhigi kartaa iyo kambaniyada kale. example intaas ayaa joojinayna. real account baa inoo haray. real account haddaan isla qeexno it is related to asset and properties of the business waxa uu la xiriiraa hantida mataqaana asset and properties of the business hantida uu ganacsigu leeyahay. asset and properties labadaba waa maxay waa hanti laakiin the difference u dhaxeeya waa maxay asset waa maxay waa hantida adigu leedahay laakiin ganacsiga kamid oo ganacsiga ku jirta. property-na waa maxay waa hantida adigu leedahay oo ah out of the business ganacsigaaga ayay ka baxsan tahay oo ganacsigaaga hadduu khasaaro property hantida khaasatan u leedahay loo imaamayo laakiin tan asset-ka hantida aad mataqaana ganacsigaaga hadduu khasaaray
oo mataqaana hantidaadu ay mataqaana waa loo imaanaya marka tan asadkan oo ganacsigaaga hadduu loos galay waa loo imaanaya dabcan waa lagala xisaabtamaya oo micnihi waa laga qaadanaya dan waa la iibinaya oo looska ayaa mataqaana lagu buuxinaya marka that's the difference u dhexeeya marka examples waxa kamid ah machinery furniture cash goods ayaa kamid ah examplada oo real accounting nominal accounting waa maxay hadaa Soomaaliland isku dayo wuxuu noqon karaa ugu dhow account magacaaban oo kale definitionkiisa waxaa kamid ah it is related to expenses and losses waxa uu la xiriiraa expense kharashaadka iyo losska incomes and gains of the business income and gain labaduba waa maxay waa profit waaye oo laba wax waaye waa dakhli waaye waa income waaye of the ganacsigu leeyahay exampleska waxaa kamid ah sida examplada waxaa kamid ah salary account ayaa kamid ah rent account ayaa kamid ah wages account ayaa kamid ah discount ayaa kamid ah salary waa maxay marka mushaharka ayaa lacagta mushaharka ee salary waa rent waa maxay waa kirada wages waa maxay salary and wages the difference u dhaxeeya waa maxay salary waa maxay mushaharka billaha ah qofka billaha uu bixiyo wagesna waa maxay waa kan maalinlaha ah waxa dhahnaa oo Soomaaliland jornati oo qofku markuu 1 hour shaqeeyo 1 hour siinayso haduu gal shaqeeyo gal lacag siinayso waa maxay waa mataqaana jornati oo kale discount waa maxay qofku mataqaana discount qofku marka kharashaad wax iib qofku alaab badan ka iibsado aad nusqaan u sameeyso ama wixii mataqaana qiimo dhimis baad karnaa kala qiimo qofka inaad ka qiimo dhimis u sameeyso ayaa noqon karta marka casharka maanta wuxuu ku saabsanaanayaa inta ay ku saabsanaanayaa types of accounting rules for debit and credit iyo journal entry-ga casharada kale gadaal ayaa ka qaadanayna oo maanta inta kaliya ayuu ku saabsanaanayaa casharkeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.